soo dhawaada saabta barnaamijkan haddii ay isticmaasho waa hubaa page-kaada inuu kala kacayo weliba si dhaqso u kala kacayo aniga tijaabada ay sameeyeen anaa ku tusayo okay barnaamijka hore aan ka soo hadlo wuxuu ahaa co-stream sida loo isticmaalo dad badan ayaa fahmay inkastoo dadka ay dhinaxad hal maalin ka badan lama isticmaali karo see la yeelaa taasna anaa muuqaalka soo sameynayo adigoo co-stream maalin walba 100 video geli karo adoona lacag waxaas bixin aniga muuqaalka soo sameynayo marka maanta barnaamijkeena aan ka hadli doono amba application-ka maanta waxa waaye waxaa lagu magacaabaa creator studio haddaa isticmaasho waa page-kaada inuu kala kici doono taasna caddayn waxaa kugu filan waxaan ku tusayaa page-kii maalin hore sameynayay oo actiin ku sameynayay followdiisa inay socoto u jeedin yacni xalay iyo maanta kale ayuu ku gaaray 2,000 wax yar u dhimanba oo 100 ka siyar marka intaas in ka badan waa sameyn kartiin marka yaana war idinku daalin muuqaalka inuu idinku dheeraado ma rabo barnaamijka maanta isticmaalana waxaa kala soo digi kartaa Play Store markaad tagto oo qaybta searching-ka aad tagto waxaa ku qoraysaa creator studio ku qoraysaa search-na dhehaysaa marka waa furanaysaa open aan leedahay hadduu ku soo dego marka meeshan waxaa waaye hadba Facebook-kaada yacni hadda tusaale 3 Facebook waa leedahay Facebook-kaada user-ka xilliga ka kacsan ayaa internet ka kacayo kadib halkan markuu ku keeno waxaa leedahay continue aa leedahay already meeshan u jeedin pages badan ayaa ku jiro page-ka waa kana page-ka aad doonayso ayaa ku dulfanaysaa waa kana Selac Media Group waa page-kii baraatigada aan ugu talagalay baraatig ahaan inaan ku sameeyo page aan iska sameeyo oo yacni aad aan wax dan kale ma yacni waa page in wax idinku baraatigay aan ugu talagalay already 2,000 uu hadda xiri rabaa marka creator studio kali wuxuu ka caawinayaa muuqaalkaada yacni Facebook-kaada muuqaalka dhigayso inaad thumbnail u yeesho sida YouTube-ka kale YouTube-ka muuqaalka inta ku dhifan ka hor sawir ayaa saaran sax creator studio sidoo kale waaye macnaha page-kaada muuqaalka dhigayso waxa uu sameynaysaa thumbnail qurux badan tusaale ahaan aan siinaa creator studio waxa uu qabto hadda tusaale cad ayaan siinayaa creator studio waxa uu qabtaa thumbnail ayaa muuqaalka yacni muuqaalka sawirka ka horeeya muuqaalka intaan lagu dhifan ka hor sawirka ka horeeya soo baxayo ayaa laga saaraa marka haddii aad live soo geliso ama muuqaal ahaan aad soo geliso page-kaaga waxaa muhiim u ah inaad sawir soo jiidasho leh aad ka hormariso tusaale ahaan inta ka tusahay ha ku qoran dardaaran guud sax u jeedaa dardaaran guud ku qoran sawirkaas oo muuqaalka intadan ku dhifan ka hor ku soo qabanayo ayaa waxa thumbnail ayaa loo yaqaanaa thumbnail yacni waa sida YouTube-ka kale camal marka waa inaad isticmaashaa sawirada thumbnail-kan waxaana ka caawinaya creator studio waa sawirkan ka horeeyo waa u jeedin sax muuqaalka intadan ku dhifan sawirkan ka horeeyo kaas loo yaqaanaa thumbnail creator studio ayaa laga saaraa marka ku dhifto sawirka fiiri muuqaalka ku soo baxayo okay intaas waa isla fahnay tusaale ahaan waxa ku dhifanayaa muuqaalkana ku dhifanayaa waxa ku sii dhifanayaa qalinkan okay add thumbnail oo jeeda marina waa ku dhifanayaa marka sawirkana ku dhifanayaa next yaa leeyahay next marka dhaho yacni oo jeeda sawirkan qofka markuu arko si toos ah ayuu muuqaalku ugu dhifanayaa yacni waa sawir soo yacni isleeyahay bal muuqaalkan muxuu yahay wuu ku dhifanayaa yacni muuqaalka markuu arko sawirkana ka soo horbaxayo yacni waa sawirkan waa sawirka dadka soo jiida lahaa inay muuqaalka yacni daawadaan marka waxaa leedahay save okay save aa leedahay hadda already meesha wuu saarmay waa isbedesho ujeedaa okay intaas waa isla fahnay asxaabta aad u mahadsantihiin YouTube-kana oo arkay sidaas subscribe soo saaraysaan aad iyo aad u mahadsantihiin waa muddadan kooban gudaheeda ayaa dad nagu soo biiray waan soo dhaweynaynaa okay meeshan yarta naga buuxiyay insha Allah aad iyo aad u mahadsantihiin